wax aad looga xumaada maanta in golihii shacabka dhexdiisa ay niman danaystayaal ah oo dana shakhsi iyo dana shisheeye kalkaala ay baarlamaankii ayagoo xildhibaan ah isku dayeen inay xiraan laakiin waxa u sheegaynaa guddoonka si ay nimankaas shuruucdii ay ku tunteen laga abaal mariyo oo loo mariyo xeerarkii baarlamaanka u yaalay muxuu ahaa lagu qaado xeer hoosaadka baarlamaanka u yaalo sidoo kale waxaan u sheegayaa xildhibaanada kale inay ku quus qaataan xeer hoosaadkaas baa dadka kala saaraya waa dad dawladnimada diidan waa dad imaaraad iyo dana shisheeye iyo ay kalkaalayaan nabadii diidan horumarkii diidan dawladnimada diidan dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku joogaan sharciyad ay saxiixeen labada gole iyo muxuu ahaayo madaxweynahan uu saxiixay bay ku joogaan haddii uusan sharci jirinna wax walba ay ansixiyeen sharci may noqdeen waa taa aragtaan wax walbo inay sharcigiisa ay ku socdaan ilaa iyo haddana ay shaqaynayaan hay-adihii dastuuriga ahaa ilaa hay-ad kastana hay-addii ay bedeli lahayd timaado dalkan kama tegayno kamana tegayaan madaxweynaha ma tegayo guddoonka ma tegayo intoo dhan ma tegayaan baarlamaankana baarlamaan jiruu ahaanayaa hadday nimanka maamul goboleedyada ah ee wanaagga wada haddii ay maamul goboleedyada maqan ay ku waafaqi waayaan waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajeynayaa inay nagu waafaqaan wax allaale wixii baarlamaanka soo saaro ummadda Soomaaliyeed waxa kaliya ay ka dhursugayso ay sugayso waa baarlamaankaas insha Allah ta'ala haddii kulanka loo fadhiyo madaxweynaha muddo badan buu samray horumaridka uu qabtay waa la arkaa wax walba wanaag uu qabtay waa la arkaa inta dulqaadkiisa la eegaya ummadda Soomaaliyeed uu u sabray waa la arkaa waxa uu sheegay ummadda Soomaaliyeed tanaasulaad badan baa loo muujiyay labada maamul goboleed ee maqan xildhibaanada ay hadda soo direen waxa dhibaatadaas maanta geysanaya aragtaan ee golihii ummadda shacabka Soomaaliyeed ee doorteen soo xiraya waxa weeye labada xildhibaan iyo inta yar ee koobanaya 10 gaareen dadka aan 10 gaareen looma joojin doono xeroosaadka baa la marin doona insha Allah ta'ala inta ka dambeysay ku quus qaata saas baa idin sheegaya labada maamul goboleed ee meesha ka maqana haday dadka soo raaci waayaan waxa go'aan ka qaadan doona biidnillaahi alkariim baarlamaanka labadiisa gole si guud iyo si gaarba waxa ugu sheegaya ayagana inay dadka soo raacaan hadaysan soo raacin baarlamaankaas wuxuu awalba ansixiyay uu u codeeyay dalka inuu aado qof cod midaan doorasho dadban ayaga keenay ayagii baana ku heshiin la waliba si gaar labada maamul goboleed ee hadda maqan waxa uu sheegaya isku dirka ee golaha ka wada hadaysan joojin ay shaqada ay wadaan aysan joojin in muxuu ahaay baarlamaanka uu go'aan ka qaadan doono dalkana ummadda shacabka Soomaaliyeed gacantooda lagu celin doono doorashada dalkana uu aadi doono qof cod insha Allah ta'ala aad ba u mahadsantiin